Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, hi everyone. I'm Dr. Salma Abdurrahman. I'm Sudanese. I'm obstetric and gynecology specialist. Isbitaalku wuxuu qabtaa shaqooyin badan ay ka mid yihiin hooyada dhalmada sida loo yaqaan qafka qalad ama antenatal care ama la dhaho la socodka hooyada uurka leh iyo hooyada u baahan in la caawiyo infertility ama hooyada inta badan muddada badan la qabay aanan awlaad dhalin kuwaasoo loo sameeyo qaliimo loona sameeyo daawooyin marka ugu horeysa hooyada waxaa ku tijaabinaa daawooyin kuwaasoo ah in lagu caawiyo daawooyinka lagu siiyo haddii hooyada falilahi alxamdu daawooyinka ku yeelato waa kaas haddii kalena waxaa loo sameeyaa wax la dhaho qaliimada laparoscopiga marka hore la fiirina tubooyinkeeda xiran yihiin tubooyinkeeda hadday xiran yihiin loo sameeyo qalinka tubooyinka loo furo tube open la sameeyo andan hadday burooyin ku yaalaan hooyada waxaa loo sameeyaa laparoscopic oo amar loo qaloo kala qaadi karo laparoscopic iyo laparatomy taasoo loo sameynayo hooyooyinka ama kuwa burooyinka ku yaalaan taasoo kale hooyada loo sameeyo qaliimadaas oo infertilityga dhammaan isbitaalka kalkaal ayaa ku horgalo